waxaan rabaa marka hore inaan idinka mahadceliyo qoladiinii kasii shaqaynaysay sida hadda wasiirka caafimaadka uu noo sheegay ilaa 5 kays inay hadda marayaan oo uu ku jiro wasiir ku-xigeenkii beeraha 6 kays oo wasiir ku-xigeenkii beeraha uu ku jiro iyo intaasoo laga shakisan laakiin cilada jirta ay tahay qalabkii oo yar lagu baadhi lahaa oo ayna saamaxaynin inaan qof iyo dadkii oo aan xamili karaynin ama aan u hoggaansamaynin ama aan qaadanaynin awaamirta la siinayo iyo irshaadaadka cid waliba ay siinayso dadku soomaalidu waxaad garanaysaa hadda Yurub Sweden nisbada ay ka yihiin datir ahaan iyo dhimashadooda isma laha waxaa keenaya waxayna qaadanaynin waxa loo sheegayay iyo waa dad fawdo ka samaysan taasi waxay noqotay markaa mushkilad inagu noqotay si caama gaar ahaan cunsurka Soomaaliga aanan aad uga cabsi qabo inaan halkaasi noqon doono meesha Soomaalidu meesha adduunka uu ugu dambeeyo inay Soomaalida noqonayso waa sax waxyaalaha duruuftu ay keenaysaa qoto daruuriga dadku ay ka raadsanayeen oo hadda مثلا macallimiinta oo kale dugsiyada quraanka iyo waxaad sheegaysaa inay ahaan dadka ugu adag waalidiinta waxaa la rabaa hadday iyagu hayaan inay xataa macallimiintaas lagu booriyo ama dowladda ha noqoto ama ha noqoto waalidiintii dadkii wax ka qaadanayay inay ilmahoodii si ayna ugu noqon liftan masiibo caadaa timid inay ku daraan inay wax siiyaan oo ay wixii ay siin jireen carruurtooda daraaddu ay ku siin jireen si aan ilmaha looga hawaarin inay arrintaas usii sameeyaan waxaan idinka mahad celinayaa sida culayska uu qof waliba u qaadanayay ee aad arrintaa xoogga uga wada shaqayseen iyadoo ay jirtay dhibkii taagnaa ee beelihii isku dhacay oo aad shaqadeeda ku jirteen iyo cudurkaanoo isaguna ahaa masiibo kaleo dhibaatadeeda iskale waxaan rabaa arrinta cudurkan horey baan baaq u jeedinay dadka in la wacyigeliyo oo loo sheego ma aha in la fara dhaqdo baalka wejiga lagu xidhanayo guryaha la joogo waxaa asal u ah dadku inay horta maqlaan waxa loo sheegayo oo sidan bal fawdada ee lagu jira la iska daayo oo masaajidada la joojiyo oo la joojiyo dugsiyada iskuuladii baa la xidhay oo isu imaatinada meelaha intaas intii khayr kale intii la joojiyo in ka xun in la isugu yimaado ayna macno samayneyn oo dadku ay qaataan awaamirta la siinayo sida ay u fuliyaan dowladduna Jubbaland waxay ugu deeqday maanta Kismaayo oo kale ilaa 3 meelood meel weyn oo magaalada ka baxsan oo meeshan maxjarka ka dambaysa waxaan ugu talagalay haddii culaysku uu sii bato in dadka la geeyo 2 meelood oo kale oo isbitaalkii ku yaalay halkan maxjarka muxuuha maxfalka iyo tan hadda dhalinyarada loo dhisayay 2 meelood inay noqoto meesha degdega ee nambarka yar ee xanuunsanaya 2 meelood hadda ay dowladdu ay u diyaarisay 3 meelood aan sheegay 3daba inaan diyaarino oo ay noqoto 3 meelood oo hadda degdeg u diyaarsan oo wixii markaas sarre la heli karayo iyo wixii qalab aan heli karayn aan meesha isugu geyno waxaa soo raacda oo u baahan in markaa culayska aan saaro beesha caalamka iyo cid walboo naga caawin kartaaba duruuf baa timid xaaladan markay timid maanta roob baa daay waxaad ogtihiin fatahaadaha jira iyadoo xanuunkii jiro oo culayskii xanuunka uu jiro haddana duruuf kale oo noloshii abaa timid baar dheera ilaa 7 qof baa hadda maraysaa dhimashadu iyo waxa la leeyahay dhulkii dadku ay beeranayeen oo kale way baabeen jasiiradda hadda Madhawo oo kale 80% guryaheedu way dumeen waa jasiirad nolosha dadku waxay ku xidhnayd kalluunkiina ma jiro guryihii way dumeen dadkaasi waxaan u malaynaya waxay inooga baahan yihiin gurmad waxaan rabnaa inaan gurmad kale oo aan kan karoonaha ahayn intaan magacoono meelaha qiimeyn lagu sameeyo wixii aan u tari karo ee gaadhsiin karaan la gaadhsiiyo international community-ga iyo dowladda iyo waxaasoo dhan aan u sheegayna inay dadkaas soo gaaro oo in loo waxeeyo waxaa kaloo caqabad dhex socda waxaa jira dadka 10 qaadayay qaado oo 2 kursiba
waxaan distance dadku ma wada baalka ana waxaan isku dayay kari karayo in waa yar waxaa ugu tijaabay markaad xirato haddaad intaad daarto afuuf hadduu damo weli waa haddii laakiin uu demi waayo uu kugu filan yahay marka bal in harqaanadana si shaqa abuur bay noqonaysaa technical loo raadiyo baabuurta ha loo sheega dadka dhowrka qof ee wada raacaysa weliba inta mas-uuliyiinta ugu sii daran hadda nin baa wuxuu ka hadlaya wasiira qof baan soo maray afka duwale waa ma qadartaadan rumaysnayn maxaa afka kuu duway may qadartana rumaysnow awrkaagana dabra tala saaro laakiin qadarna noqonin ha noqonin ku dhamaanay wixii nuclearku dili waaye baa ilaahay laynayaayo xanuunkani si sahlan qof waliba ugu dhimanaya la wada rumaysanaya waxayna tahay marka culayskeeda maanta soomaalidu isma oga waxaa laleeyahay xabaalihi meydadkii way bateen lama yaqaan waa la yaqaana cudurkana maxaa dadka xabsiyada ku jira isagoo soo fiiriyo wixii markaa aan la sii dayn karayo dadkaasi la fasixi karayo xaaladoodu ay saamaxaysa in la fasaxo ama aan jariimo weyn ahayn ama aan xaq dad oo si fudud ugu heli kara xataa xaq dad iyo dado wixii ah oo dowladdu ay damaanad wixii ah hataa daro waxaan rabaa inaan idinka mahad celiyo shaqada badan ee la qabtay arrintaas guddida ahayd ee ka shaqeynaysa labadii beelood dhex jiray odayaashii waa laynagula daaranayaa dhib badan baa jira oo mas-uuliyadda aan qaadano oo dadku laamaha amnigu ay qabtaan oy gacan adag ku qabtaan dadki iyaga dhexdooda fawdo iyo dhibaato dhexdooda sii waya qofay fatenta wada annagu aan qabano oo hadday keento sharcigu inuu dil mudayo hala dilo markaas hadduu sharcigu fitantay wadaan uu garta in la dilo dhaba aan ku qabano dadkana badib loo galo oo aan isku ceshana waxa aan haysano duruuf baan na haysa dhaqaalo xubaa jirta dadkii waxaa jira baahi badan baa jirta wixii aan kari karayna dadkeena bal kuwa ganacsadaha lala hadlo in dadka fuqarada wax looga celin karayo raashin haddii la ururin kara aan ururino cid kasta oo maqlaysa warkaasna wixii ay ka qayb qaadan karta gurmada waxaan rabnaa in lanoo soo geysto oo dadkaa ama ay noqoto cudurka uu shaqadoodii xanibay ama kuwa duufaanada ay ku dhaceen ama duruuftaa guud iyo macalimiinta iyo dadkaas saameynta uu ku yeeshayba cid kasta oo wax la bixi karaysa ama beesha caalamka ha noqoto ama dowlad ha noqoto ama cid walba ha noqoto ama ganacsadaha ha noqoto qofka ganacsadaha maantoo kale wey xilliga sadaqadiisu ay kacayso ay u labalaamayso ribix badaan ay u fuulayso arrintan uu ka hadlayay wasiirka kalluumaysigu oo ahayd suuqii kalluunka bal wasaaradda caafimaadka waxaan rabaa marka hore inay horta gloves raadiso la siiyo dadkan gaar ahaan ka shaqeynaya malayga iyo hilibka iyo in gloves loo geeyo meheradaha noocaasa dadka ku jira oo dadku gacmaha ayna ku waxaysan qof kastoo qaqabanayana la isku daya in loo raadiyo haddii suuqii hadda waa la duminayay ay meel kale oo munaasaba jirtana meelahan hadda ama doonyaha lagu sameyo wax kale inti jiiga deg dega looga sameeyo barnaamijkan coroonaha ah wixii naga soo gaara in iyadana la khafiiyo bal dadka in sidaa loo dhexmaro iyadana halaga shaqeeyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa aan shaqo u dareero yaan la isku mashquulin yaan shirar badan la isugu imanin hadda kadib hadday noqoto in kulamo la isugu hadda zoom iyo wax teleconference lagu gale bal waxaan isku dayaynaa intaan banaanada fadhiisano meelo kale fogfog inaan fadhiisano inagoo afku inoo duuban yahay gacmahana inoo laalaaban yihiin aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu